deeqdan lacageed oo iska soo ururiyeen maamulka iyo macallimiinta jaamacadda City University iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Montreal ee dalka Canada taasi oo loogu talagalay in wax looga qabto dadka ay abaaruhu ku saameeyeen gobolada dalka Soomaaliya ayaa maamulka jaamacadda City University ku wareejiyay guddiga gurmadka abaaraha qaranka. Gudoomiyaha jaamacadda City University Cabdullaahi Axmed Bariise ayaa ka warbixiyay tirada deeqda lacageed ay ku wareejiyeen guddiga gurmadka abaaraha qaranka. hawshaani waa hawl runtii in loo istaago oo waliba si dhaqso ah maaragtay loogu wada gurmado loo baahan yahay waa waajib diini ah waa waajib qaran fadhiga laga kaco cidna yaan la sugin. gudoomiye ku-xigeenka hay'adda culimada Soomaaliyeed ahna xubin ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha qaranka Sheekh Nuur Baaruud Gurxan ayaa ka mahad celiyay deeqda lacageed ay guddoonsiiyeen 5 oo jaamacadda City oo madaxda ka yahay oo ka wado waan ka gudoonnay waxaan leenahay Allah idinka aqbalo waana idinka mahad celinaynaa waana waajib diini oo wadani ah marka si fiican baad yeesheen waana jaamacaddii u horeysay oo nolol soo xidhiidha sharaftaasna waad leedihiin jaamacadaha kalena waxaan ugu baaqaynaa inay ku daydaan walaalahooda City University. dhanka kale deeq lacageed iyo raashin ka kooban bur bariis saliid sonkor timir iyo caano ayaa maanta hay'adda Hormuud Foundation ku wareejisay guddiga gurmadka abaaraha qaranka iyadoo guddiga gurmadka abaaraha qaranka ay sidoo kale ku wareejiyay deeqdaasi raashinka iyo jeeg lacageed maamulka gobolka Banaadir. madaxa hay'adda Hormuud Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan ayaa ka warbixiyay deeqda ay soo gaarsiiyeen guddiga gurmadka abaaraha qaranka iyo waxa ay ka kooban tahay inaan ku wareejino guddiga gurmadka abaaraha ee qaranka Soomaaliyeed deeq raashin ah oo aan ugu talagalnay dadka ku soo barakacay gobolka Banaadir ee ka soo barakacay gobolada kale ee dalka ee ay abaaruhu saameeyeen. gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed ahna xubin ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha qaranka Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa ka mahad celiyay deeqda la soo gaarsiiyay. raashinka ama qaleyseen oo maaragtay dadka barakacayaasha lagu talagalay gobolka Banaadir ay ku deeqday shirkadda Hormuud oo runtii looga bartay inay dadkeeda wax tarto. jazakumullahu khayr baan ku leenahay Allah barakeeyo. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa ka mahad celiyay deeqda raashinka iyo deeqda lacageed ay ku wareejiyeen guddiga gurmadka abaaraha qaranka maamulka gobolka Banaadir. waxaan leenahay shirkadda Hormuud oo garwaaqsatay inay dhaqaalaha Ilaahay siiyo ku manadeystay inay wax ka bixiyaan ee maanta ku kaalmaynaya dadkooda ku kaalmaynayo meelihii ay tirinayeen hadda aan maqlaynay waxaan leenahay ku daysashay mudan yihiin waxaan kaloo leenahay wama anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlif Ilaahay baa bedel khayr qaba siinayo cid kasta oo wax la baxdo. xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Yaxya Cali Ibraahim ayaa ka hadlay deeqda loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka abaaruhu ay ku saameeyeen gobolada dalka Soomaaliya wuxuuna tilmaamay in deeqaha lacageed iyo raashinka loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka abaaruhu ay ku saameeyeen gobolada dalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir loo gaarsiin doono sida loogu talagalay. waxaan kala wareegnay halkan aan taaganaan kula wareegnay deeq ka kooban timir 90,000 oo kiilo ah 600 oo loor oo bariis ah iyo 2,700 oo litir oo saliid ah oo shirkadda Hormuud aan kala wareegnay oo gawaaridan saaran. sidoo kale isla munaasabadan waxaan rabnaa إن شاء الله إن أنا وجودي قرن جرمة كبارها إن نكون رجينه دغري عن كهلنا شركة هرمود. موسى عثمان أبطو تلفزيون كقرن كسوماليات مقدشة.